asalaamu calaykum daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka janaalkeena xogta dalka. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalab culus u gudbiyey ururka jaamacadda carabta iyo madaxweyne lafta gareen oo sheegay in Soomaaliya ay gashay gumeysi qarsoon. villa Soomaaliya oo shaacisay in ay dhinteen qaar ka mid ah dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea. qodobadaasi qodobo kale xiiso leh ayaad ku daawan doontaan channelkeena xogta dalka daawade. haddii aad ku cusub tahay subscribe saar like saar si uu dad badan u sii gaaro mahadsan. aan ku bilaabay ergeyga gaarka arrimaha bini'aadanimada iyo abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhambaal qoraal uu ka siday madaxweyne xasan sheekh maxamuud u gudbiyey xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta mudane Axmed Abuljeed Ilyas Sheekh Cumar Abubakar oo ah danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Masar ahna wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya oo fadhiya jaamacadda carabta ayaa xusay in fariinta madaxweynaha Soomaaliya ay tahay mid bini'aadanimo oo ku aadan in si degdeg ah loogu istaago gargaarka shacabka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu halakeeyeen. waxa uuna sheegay in shirka wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda carabta ee beri loogu hadli doono arrimaha abaaraha Soomaaliya uu ergiga madaxweynuhu u soo bandhigi doono xaaladda abaarta Soomaaliya isagoona codsaday in Soomaaliya aan lagu eegan xaaladda abaarta adag. ergada Soomaaliya ee jaamacadda carabta ayaa ku micneeyay fariinta madaxweynaha Soomaaliya in Soomaaliya ay ka codsanayso jaamacadda carabta iyo dalalka Carbeed in ay caawiyaan dalkiisa oo ay abaaru hore aan loo arag muddo 40 sano ay ka jireen iyadoona ku dhawaad 7 milyan oo muwaadiniin ah wajahayaan xaaladda macluula. sidoo kale ergada Soomaaliya ee jaamacadda carabta ayaa intaasi ku dartay in ka badan 7.1 milyan oo qof oo dhibaatadaas soo gaartay ilaa 700,000 oo qof oo ku qasbanaaday inay ka barakacaan guryahooda si ay u raadsadaan cunto, biyo iyo baad. tirada dadka barakacayaasha gudaha Soomaaliya ayaa hadda gaaraya qiyaastii 3 milyan oo qof. xaaladda ayaa sidoo kale ka sii daraysa iyadoona meelo kala duwan ee dalka ay ka dilaaceen kalooriin iyo jadeeco. ergeyga madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta ifafaalaha abaaraha ee dalkiisa uu la ildaran yahay iyo saameynta xun ay ku yeelan karto shacabka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay dalalka carabta inay taageeraan Soomaaliya si ay ula tacaasho dhibaatada baaxadda leh ee halista ah ee malaayiinta qof ee aan waxba galabsan haysata. ergeyga madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay Soomaaliya u baahan tahay in la xoojiyo iskaashiga iyo wadajirka dalalka carabta si ay u caawiyaan dalkiisa isagoona carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo qorshaha degdega ah ee dalalka carabta si loo yareeyo khatarta musiibooyinka. madaxweyne lafta gareen ayaa nasiib darre ku tilmaamay in 62 sano kadib xilligani dowladnimada Soomaaliya ay marxalad adag gashay islamarkaana uu dalka ku jiro gumeysi qarsoon oo meelo badan laga soo maleegay. inkasta uusan sheegin meelaha laga wado gumeysigaasi, madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa khudbadiisa ku sheegay in dhalinyarada Soomaaliya maskaxda laga qabsaday islamarkaana dadkooda, dowladooda iyo calankooda intaba lagu diray iyagoona u soo maleegay dhibaatooyinka kala duwan. lafta gareen ayaa hadalkani sheegay xilli isaga xitaa lagu eedanayo inuu dadka u diiday xorriyaddii aasaasiga ee ahayd sida xorriyadda hadalka, doorashada iyo ismaatinka isagoona Koonfur Galbeed geliyay nidaam u eg kaliya talis. dhinaca kale afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo marti ku ahaa barnaamijka ka baxay TV-ga Somali Cable ayaa si cad u sheegay in qaar ka mid ah dhalinyaradii tababarka lagu qaaday dalka Eritrea ay siyaabo kala duwan ay u dhinteen. Cabdikariin ayaa intaasi raaciyay in dhalinyarada dhimatay waalidkoodana ay akhbaartaas u gaartay isagoona ballan qaaday in waalidiinta aan helin xogta wiilashooda dhintay uu isaga siinayo. waxa uuna u sheegay warihii wareysanaya inuu nabarkiisa u qoriyo lana soo hadashiyo dadka waalidiinta ay ka maqan wiilashooda kuna dhintay halkaasi. waxa uuna intaasi ku daray inuu siinayo xogta wiilashooda ayuu yiri afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar. barnaamijkaasi oo ahaa mid su'aalo lagu weydiinayo afayeenka ayuu sidoo kale shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay sidii dhalinyarada si dib loogu soo celin lahaa dalka. marka la weydiiyay su'aal ahayd in lacag dhan 50 milyan madax furasho lagu haysto dhalinyaradaasi ayuu ka mirmiray inuu ka jawaabo
waxaana wariyaasha Soomaaliyeed u soo jeediyay inay iyagu baaraan xogtaasi. Ugu dambeyn, afhayeenka madaxtooyada qaranka ayaa sheegay in dowladda ay u ballan qaadayso in dhalinyaradaasi inta ka nool dalka dib loogu soo celinayo iyagoo tababaran oo dalkooda anfacaya. Danjiraha Soomaaliya jooga magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya labada dowladood kaasoo maalmihii la soo dhaafay soo hagaagayay kadib dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Tarsan oo la hadlayay wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in labada dal ee dariska ah aysan kala maarmin isla markaana ay labada dhinac baahi u qabaan xoojinta xiriirkooda. Safiirka ayaa sidoo kale xusay in Soomaali fara badan ay ku nool yihiin gudaha dalkaasi ayna ku leeyihiin ganacsiyo waaweyn, sidaa darteed ay tahay in laga fikiro mustaqbalka dadkaasi Soomaaliyeed iyo hagaajinta xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada shacab. Dowladda Kenya iyo annaga oo dariska waxa aynu nahay laba dowladood oo aan kala marmi karin, waxaana aan leenahay xuduud dheer. Dad badan oo Soomaali ah ayaa halkani ka shaqeysta si nabad ah oo xasilooni ay ku dheehan tahay oo raalli ka yihiin dowladda Kenya iyo mas'uuliyiintooda. Sidaa awgeed, dadka Soomaaliyeed waxa ay aad ugu baahan yihiin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya. Muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya muhiim ayuu inoo yahay, iyagana sidoo kale lama kala maarmo labada dal, ayaa sidaas yiri Danjire Maxamed Tarsan. Danjire Maxamed Tarsan sidoo kale waxa uu tilmaamay in labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku qasban yihiin inay iska kaashadaan dagaalka Al-Shabaab oo weeraro ka fuliso labada wadan. Danjiraha ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya aysan gooni u kala taagnaan karin, isla markaana ay leeyihiin hal cadow oo ah kooxda Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. Hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan la filayo in la furo xadka labada dal, sidoo kalena dib loo bilaabo keenista qaadka ay ka yimaadaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku soo xirtay markab siday shidaal badan xilli ay deegaanada Puntland ay ku jirtay baahi shidaal noocyadiisa kala duwan ay maalmihii la soo dhaafay qabeen. Markabka markii uu soo xirtay waxaa dekedda buux dhaafiyay gaadiidka shidaalka qaada kuwaasoo shidaalka ka daabulaya gudaha magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland. Dekedda magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaana ka dhoofiyay xoolo nool oo loo iibgeeyo dalalka Carabta. Xogayaha wasaaradda beeraha dalka Kenya Peter Moi ayaa shaaca ka qaaday in 5 bisha July ee soo socota dib loo bilaabayo dhoofinta qaadka Kenya ee la keenayo Soomaaliya, taasoo ka soo beegantay xilli ay nafis u tahay kumnaan beeraley oo miirooga ah oo 3 sano ugu dambeeyay wajahaya khasaaro ka dhashay xanibaadii suuqa Muqdisho. Dhawaan ayay ahayd markii uu magaalada Muqdisho yimid madaxweynaha Kenya, waxaana wada hadal ay yeesheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waa tahay daawadayaal, warkii aad ka daawanayseen channelkeena Xogta Dalka waa naginta. Intaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Amaana Allah.